bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabtan ku xiran halkan doctor dhagan safar media maanta waxaan idin wadnaa barnaamij aad u qurux badan weli markiisii ugu horreysay aan inagu soo tabino haddii aan nahay team king sulfur media ka hor inta aanan intaa u gudagelin waxaan idinka codsaynaa soomaaliya inaadna soo dhaweysaan naguna caawisaan waqtigiina waxaan ka rabnaa keliya inaad subscribe gareysaan channelkan si uusan kuu dhaafin muuqaalada xiga sidoo kale haddii aad na siiso like innagu waxay inoo tahay dhiirigelin muuqaalkeenna waxa uu gaari doonaa dadyow tiro badan intaa kadib maanta waxaa barnaamijka marti u ah master qays oo aan barnaamijkan aan uga magac daray qisada jacaylkaaga aan isagu ku bilaabi doonaa waa qiso aad u xanuun badan waa anigu marar badan oo qays saaxiibkay igaga sheekeeyey waxaan jeclaystay barnaamijkan inaan bilaabo kuna bilaabo isaga master qays kusoo dhow markii ugu horreysay channelka Dr. King Sulfur Media. ما شاء الله ما سنتهي دكتور كينج سيلف ميديا فرصة قليلة أساسي لأن هذا بشر الصومالية رقم هذا الناس. Thank you. مرحبا dadka waxay sugayaan qaysow qisada ay ku soo arkeen ciwaanka muuqaalkan ka hor inta aysan dooranin in ay muuqaalka ku dhuftaan qisadan run ahaantii aad bay aniga ka King Sulfur ahaan ii saameysay adigana waxaan jeclahay in aad la wadaagto bulshada qaysow bal marka hore qisadan bilowgeeda والله هرت السودو waa dhawaa هرت قسم قصة من بدن الصومالية وحيد هذا جعل مجرى قابل وحي قيرنا وحيد هذا جعل وجرى مثل قصة هاي أنا جا مثلا هاي إنه جعل جرى ودبعة بدن وليه هاي وبروبلم بدن وليه هاي والعلاج بدن وطا aad دبهانتي جعل أنا جا ويقول عين waxaan adiga aaminsan tahay qaybta aaminsan inuu jacayl jiro okay دبهانتي محقق كرنا جعل واحد جرى سيب أهان نفسي أنا دان كهلا وحنا يقول عين وحنا يسمي دبعة تفرق بدن يجيستي way aan gartay دبهانتي أنت هو جود قلب ولا واحد جرته هاي سكول بأنا خلصني هاي سكول لما تفسير سارة iskooley سكول لي rasmaal u yaqaan iskooley سكول لي aha تفسير سارة waan gartay كبر بقى استعلاني نبغى فوم تو form 2 فوم Class-ka laba tobnaad. كلاس كي لبي تونا نو form 2 sama فوم فور كلاس كي لبي تونا فوم form 2 waa galas كلاس كتونا Class 10 Class tobnaad. ama fasalka tobnaad يا مركو على جود استعلاني سكول كديب وهاي بود المهن جود جعل باوداكني دبها هذا إذا جبر دائر بهاد أنا من لا يرعى هاي ربط لها هلو جبر استعلاني جعل كاير مركو حميد ويني عما saa'id macnaha سائد وسيسي هذه waa dhiin Ha, waa dhabahaan. meesha u maryaa liinta kalamiida oo kale ها macaan u maraa محمد بمرويا haye دبها أنت اسكو أنسى مركونا اسكو سلو أنا ما هيستو weliba ardayaa tihiin galaaska tobanaad ها isku fasalaad tihiin classmate schoolmate desmate haddana waxaa sii rabtiin inaad isguursataan اسكو سلو aha أقل كلنا لكن وحلا ما هايو أنا وح ما هايو waa sax xilligaas waa xilliga ugu dhibka badan oo qof walba oo ardaya soo maray وح ما هاي أنا هلا فاميلي سكيرة سبول بانك سوجودي كمان اسكير رون فاميلي سكير رون بيك سوجودي هاك سوجودو كمان دمرك أركي أنا اسكور سنة واحدة أودين هذا اسكور الرجال أنا سابح سنة عمل okay أنا لا مركا وحي أنا نقطي عيب waa ka xishootay ما كيشودي كمان وح بان صوبري أنا والد كيسنا عمل marka waxaan ka cabsaday labada waalid problem fara badan waa sax waa iska jirto ana ala kulli xaal waxaan wadnay waa soo bandhignay waalidka u bandhigtay waalidka u bandhigay ma sha Allah ana waalidka laguma kacan seerin laakiin waxay ugu dhaheen wax hata lama haayo wax hadda lama hayo hata lama haayo ee wax barashada iska dhamayso dhamayso gabadha waalidkooda u bandhigtay wallahi jirtil dhibaato badan problem dhibaato badan yaa fara badan lagu sameeyay because of maxaa u jeclaatay ninkan maxaa u jeclaatay ninkan haddana gabar yaraa baa tahay waxbarasho ku jirto ma fahantay taamkii lama joogo taamkii lama joogo adii gabadha problem badan baa la mariyey heer waxaa la gaarsiiyey gabadhii waxbarashada laga reebo subxaan allah adiga darta iyosan qays arkin qays la kulmin qays salaamin haa xabsi guri in la dhigo gabadho xabsi guri laga dhigo
adii dhibaatooyin fara badan gabadha lasoo marsiiyey. dan ilaa marka intay iskuulka ka maqnayd misaas iskuul Iskuulka looga reebay form 2 waxaan ku bilownay inta aaminsanahayna maan bilownay labadahaynaba waa ka aamusunahaynay laakiin way dhicis ma lahayn. horta gabadha waxbarashada meesha way ku weysay amaasha ka hor dhicin waxbarashada gabadha way ku weysay heer ana naftinkeyga iska noqday qof joogo maqana ah ma fahantay joogo maqana ah iska noqday miis gabadha jacaylkeeda way weysay waxbarashadeeda waa weysay waa iskuulka waxa ugu dambeysay kala tagtay hantii inay saan dhic u malaynaana dhab ahaantii maan suubin lahayn labadaynaba ma jacaylka waa dareen oo labada qof qalbigooda ku abuurmaayo inay gabadhaas waxbarashadeedu ku weynaysaa naftinkeyga dhibaatooyin badan baa soo gaaray mar baan iska xanuunsaday haddana waxaan maqlay qof joogo maqanaa dhab ahaantii haddaan ada markii ma dhamaysatay iskuulka aniga iskuulka waan dhameeyey laakiin saan ku dhameeyey qof dhibaataan ku dhameeyey haa hadda nin waxaan ahay waxbarashadiisa ay kor tahay marka dambe imtixaanka form 4 ama 12 hataa waxaan keenay dhigax hooso because of qalbiga ma qabsan soo qalbiga marka familygana aniga curud hal groups ay weyn waxna baranin marka aniga second born ama kan labaad tahay cidana cid iska dabareebay iska ahayd marka niyahow naftinkay meesha shucaaca kugu soo fadhiya dhaawaca ka soo gaaray qalbiga dhinac badan ay soo gaaray inkastoo hooyada shaqeyn la siiyo quraamo fara badan fahamtu wacyigeli fara badan maasha allah dadkan hataa way qusteen laakiin hooyaga ma qusan maasha allah markan yahow kadib ada marka jaamacad baade niyahow aniga jaamacad waan aaday jaamacadaan aaday diblomaan gaarsiiyey diblomaan ugu baxay dhab ahaantu waa wadi waayey buug iyo kale marka arkay gabadhaan soo xasuusanaa up to now telefoonkii shaashadeeda ayaga saaran marka niyahow gabadha up to now waxay tahay adig xabsi guri up to now iskuul ma dhameynin iskuul ma okay mala guursaday marka niyahow gabadha lama guursanin oo niman badan baa loo keenay familiga ah oo hantira ayadana weydiitay aniga waxaan u malaynaa wala hadal waxaan isku dibaysan ugu foontuwa markii aad ugu dambeysay up to now telefoon hadalkeed ismaan jiran ma ahayd marka gabadha niyahow jiran ma ahayn way isu fogeynay isku fogaana meel fogaan kala degnay camal laakiin waan iska warqabay ilaa aad xaaladda ka rabto gabar waxaa jirta shaqaalaha oo gurigooda joogto gabadha ama marka qaarkood warbixin ii soo gudbinaysay adig ilaa hadda gabadha warbixinta u baahan raadisa waa raadiyaa ayadana raadisaa gabadhii ayadana warbixinta la soo gudbinaysay maasha allah ayadana ka salaamiyaa dhab ahaanta ayadana shaqadeeda ku weysay waa la dareeminaya warbixinta ii soo gudbinaysa laftirkeeda shaqadii meeshuu ku haysay niyahow problem noocaasa iska jiro gabadhna gabar soomaaliyeed anaga soomaalida ahay hadda alxamdulilah aniga waa diblomaan karsiiyey adiga kadib inkastoo jacayl ma samays kadib niyahow jacayl ma sameynin inaan sameyna maraba dhab ahaantii jacaylka lagu sheegaa horto saadaamuu dhab ahaantii waa wax si dabeesha ku maraa mar haddii uu kalaase kaga baxan way adag tahay maruu jacaylku kalama dareemaysid suu kaga baxan waa adag tahay ma fahantay dhab ahaantii dala jacaylka lama suubin kare hadda waalidiintii wax hagaaji baa ilahay laakiin waxaan aaminsanaynay inay wax halayeen because gabadhii way waxbarasho weyde because mustaqbal ku weyde mustaqbal jacayl mustaqbal waxbarasho adig ilaa hadda gabar kale ma shukaansanaya leedahay because of gabadha darteed dhab ahaanta waxaan ka codsanayaa marka waalidiintii gabadha dhalay hadda waqtiga ugu soo dhamaaday waxbarasho waa soo dhameynay gabadha hadda waxbarashadeeda waa laga saaray anigana heer dibloma aan gaarsiiyey marka dhab ahaantii hadda u baahanahay waa u baahanahay dhab ahaantii ma ka fikirta marka sida waalidkaas uga dhacin karo niyahow marbaa isku daynay markaan form 4 isku daynay mar laisku dayay qayb family kamid ah maasha allah cid u tagay laakiin way socon waysa arrintii cid ku casireen cid gabadha ma wiilkeeda u rabaa inta badan dibadda ka imaaya ama qaraabo waxaa loo rabaa oo familygooda ah waxa ka qurbaha ka imaanay ama lacag leh marka jacaylka siisa lacag maaha meesha aad jeclaanaysa lama aqoonsi jacayl indha ma lahay hore loo dhahay marka niyahow problemkaas iska jiro marka waxaan ka codsan lahay ummadda Soomaaliyeed inay soo duceeyaan qaasana inay soo duceeyaan inaa ishelaan iyo gabadha nolosha la wadaagi lahay aan jeclahay dhab ahaantii
حتى وقت lagu jiro ugu yaraan 6 sano 7 sano u soconaa in kasii badan weli gabar tahay adigana wiil tahay weli ay gabar tahay anaa wiil ahay markaa guursadana noqon markaa haa soo markaa soo maaha walaalyaal waxaan ka codsanaynaa inaan usoo duceysaan dhab ahaantii culumadana arrintan camal ay wax ka dhahaan niyo qaysow dadka qisada noocan oo kale hayso maxaa u baaqlay marniga horta qofka ay qabsataa dareemi kara dhibaatadaas qofta ay qabsataa dareemi kara way jiraan dad Soomaaliyeed san camal isu jeclaaday oo la kala fogeeyey oo hanti lagu kala fogeeyey dad waxaa jira haddana qabiil ahaan lagu faqbuuqay dad badan baa fiirsada qabiil ahaan lagu faqbuuqay dadna hanti lagu faqbuuqo dadna qabiil ahaan lagu faqbuuqo horta dhibaatadeeda leedahay jacayl waxas ma arkaa mugta jacayl waxas ma qofka jacayl waa jeclaatay qofka bani'aadamka hadduu lixdiisa lixaad ku horta waa taajir qofka faqiirka waa qofka ay lixdaas lix dhamaashtireen ma fahantin marka waxaan ugu baaqi lahay inay duceystaan ay ducada badiyaan Soomaali waxaan ugu baaqi lahay arrimahan ay dadku wadaan ka daayaan qaasatan waalidiinta waalidiinta iyagoon xumaan baraadanayn gabadha u naxaayo wanaag raadinaya ay haddana waxay noqonaysaa kudka gur qanya u gur waxaa laga yaabaa maanta in wiil faqiir oo gabadhaada maanta dhaqan lahay inaad u diidid nin lacag leh oo gabadha ku ciyaaraya inaad siisid farxadna ay ku heli waysa meeshaas dhibaatadeeda leedahay qoyskan dabcan farxad marka waxaan ugu yo saaxib qaysow waxaan ku leenahay sorry adagaa tahay bro wallahi you are very strong waxaa waaye waa adag tahay qof jacaylkiisa intaa waayey haddana adag waa adag tahay halka talaan ku siin waxay tahay gabadhaas hadday weli joogto oo haddana maxaa la yidhahdaa aan la guursan 7 sano aad soo taagneed haka qubsan hataa hadda wax kala waysid waxaa la yidhahdaa isku day gabar la dhalatay wiil la dhashay inaad kasbato iyaga si aad wadda aad usoo marto ay ku noqoto saaxiib waxaan ku leenahay you did it bro. Inshallah. Thank you.